waxaa sharaf weyn inaan idin la hadlo warbaahinta inkastaanu xafiiskan ahayn xafiis warbaahin loogu talagalo warbixino badan bixiya laakiin markay duruuftu keento laga yaabaa inuu hadlo maaha xafiis information oo hantidhowrkana sidiisaba maaha hay-adaha loogu talagalay inay warbaahinta ka hadlaan arrintan mas-uuliyiintu ay ka hadleen sidaa ay idiin sheegeen waxaa loo baahan yahay amaanu aragnay qaabkii dee la isku bedelay aynu ogeyn ee hantidhowrihii guud ee hore sii sharafta leedu xilka u wareejiyey sii sharafta leedu guddoomiyihii kale ugu wareejiyey kiiska ayr arrintaas soo cusboonaatay arrintuna waxayd arbacadii macnuhu shir baan lahaa ku maqnaa laakiin xafiiska waxaan soo galay 9:15 shirkii kale markaan ka yimid shaqaalihii intaa dhacdo imika inoo sheegayay madaxa shaqaaluhu ee dhacday ayaa timid arrintan shaqaalaha markaan ka hadalnana inta ugu muhiimsan waa intaa qiimeedu waxa weyn shaqaalaha de waxa weyn sharci baa dalka jira attendance-guna wuu jiray laakiin iska isluub ahaa markii hore xilligii doorashadii iyo shaqaaluhu iyo xilligii kale maqnaanshadu badnaa horena aan ugu sii sheegnay guud ahaanba shaqaalaha dhan inaan la habsaamin sanadka cusub markuu yimaadana inaynu ahaano qof walba wada inuu bariiskiisa xalaalaysto waa arrin meesha taalla mana aha cadaalad darana weyn qofna inuu yimaado 7 aroornimo ama 8 maalin walba qofna inaan kaba soo xaadirin mishaar lagu soo xaadiro taa daraadeed wax iska caano xeerka shaqaalaha Soomaaliland markaad eegto waxa weyn qof walba inuu hadaan caafimaad ama fasax ama waxbarasho ku maqnayn inuu shaqadiisa sida sharciga u yimaado isagoo loo eegin gobol iyo degmo iyo tuulo midnaba sagaalka qof ee kalka ku dhigana ana dignito siiyay markii la soo gudbiyay madaxa tandiniska mana ahayn shaqaale maalin ama saacado maqnaayo waa shaqaale bisha koodeedii ilaa 10keedii maalin kaliya aan seexin saadaradeed digniin baa la siiyay digniintaasna waa tii sharciga ahayd ee loogu talagalay ama hanti dhowr guud ha qoro ama aan qoro cid gaara ama hayb gaara ama shakhsi gaara oo la target gareyn karana ma jiro xafiiskan dhowrkuna waxa uu ka sifeysay yahay waa xafiisada loogu talagalay inay ethics-ka gaarka ku shaqeeyaan hay'adda xeer ahaan de waxa ku qornaa inay ahaato gudoomiye xigeen gudoomiyaha markuu ahaa isaguna agaasimaha guud loo soo aniga la soo magacaabay هذا structure كذا اللي مكوا قاب كانوا بيسويه structure كهذا الكيسان هذا الكتوتام ده واحد مرنا كمجرو واحد بعتنا كمجرن لكن أنا وحنا قارن incident دعوة قدومية ورا ما دام سيشرف لحلك وتري الصور شلون ورئيس كيسنا كبيحيد وكيلي أنا قدومي كحيانا ونها استقالنا مدحوينا نوجد بي لكن وحيرا على تعجيب النقطون ده ما شاء وصار نقطة إنه خلدين القسم تكفهم كرتوا ما وحكا خلدين إن شاء الله تينا وانصحنا واحد بعتنا بجيران ساسا نسوقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xafiiska ka tagay warbaahinta siiyay xalay toole muddo dheer waxaan ahaa agaasimaha waaxda baadhisaha ee xafiiska hanti dhowr guud ee qaranka xafiiskan wuxuu u qaabilsan yahay ilaalinta hantida qaranka waa xafiis mas'uuliyad ballaaran haya mana habboona in waxyaabo aan jirin warbaahinta la siiyo ama ummadda lagu jahawareeriyo waxa jirtay mas'uulka hadda loo magacaabay hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Dirir waxaan jiray muddo dheer maarayihii dekada xafiis ahaan iyo baadhis ahaan waqtiyo badan oo ilaa iyo ku kooban muddo taqriiban noqonaya 4 ama 5 sanadood baadhis waan ku sameynay mar walba xafiisku baadhis sameeyo waxa uu bixiyaa ama uu sameeyaa wax la yiraahdo audit report uu kaga warbixinayo goobtii la soo baaray oo xaqaa'iqeeda iyo runteeda iyo xaaladeedaba ka waramaysa Axmed xaqiiqiyan markaan idin waramo ma aha mas'uul abtirsiimo u leh wax istabamarin ama musuqmaasuq waxaan jecelahay insha Allah taala in aanu idin soo gudbino xitaa riboodadii laga qoray waqtiyadii oo hanti dhowraha uu ahaan jiray maarayaha waqti hadda laga joogo ilaa 6 bilood ama 7 bilood waxaan filayaa inay tahay Axmed wuxuu sii ahaan jiray markii lagu wareejiyay dekada shirkadda DP World qayb la yiraahdo Harbour Master oo maamusha wax yar oo ka tirsan dekada oo la yiraahdo faraca badda markan baarista
وهذه الدورة جودة حلك لقى وريتشي أحمد وكلا وريجي وحلك سي هي أنا ما ضحى كاها كوحدة باريسي ما أنا أرق مال وربحين قلدان لقى قري iyo sumad foolxun laga sheegay toona xilligaas Axmed lamaan kul meel wuxuu ku maqnaaba xajku ku maqnaa oo hanti dhowrahan lamaan kul meel waaxda la baarayna may ahayn dekadii berbera ee waxa ahayd wax ka tirsan dekada berbera oo mas'uuliyad yar leh oo inta imika xukuumadda ku sii harsanba maamulka dekada inay maamulkii dekadeenu faraha aanay ka wada bixin macnaheedu ay tahay dekada guud waxa maamula oo gacanta ku haya shirkadda DP World marka halkii waxa la tolo warbixinta aan ka maqlayay hanti dhowraha guud ee cusub waxa uu ka diiray ama ka xanaaqay baaris aan ku sameeynay shaqaalihii ku sameeyayna argosiba yani lagu la kacay aniga kooxda hogaankii marka ugu horeysay ee tagiba ma la jirto xumaan iyo warbixin qaldan iyo meel toona wax laga qoray sida aan idin sheegayna inta dalka marka aynu ilaahay dartiib u hadalno hanti dhowraha guud ee cusub Axmed Yuusuf Dirir oo ahaan jiray maarayihii dekada aan mar meel laba ka soo gelin waxa musuqmaasuq leeyahay aad baad mahadsantiin